الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal waxaan maanta idila jeclaysaa inaan idila wadaago duca ka mid ah ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ducaad u qiimo badan duca la yaab badan duca nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku guubaabiyey duca nabigu calayhi salaatu wasalaam uu caado u lahaa inuu ku ducaysto salaada dhexdeeda ducadu haddii ay tahay duca nabiga laga haya calayhi salaatu wasalaam xilli barakaysanna lagu ducaysanayo ama camal wanaagsan lagu sugan yahay oo salaada dhexdeeda ducada loo xushay waa duca qiimo badan weeye wuxuu nabigu ku soo koobay ducadaas wax kastoo qofka bini aadamka ahi u baahan yahay aakhiradiisa uu u baahan yahay adduunkiisa uu u baahan yahay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku soo koobay wuxuu nabigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la hadlaya dadku haddii waxa weeye ay kaydsadaan dahab iyo fida ay kaydsadaan dadku markay kaydsanayaan ay ku foogan yihiin dahabka iyo fidada hantida iyo xoolaha iyo kaashka ay doonayaan inay kaydsadaan waxaad ku dadaashaan inaad kaydsataan kelmadahan soo socda waa hadaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ducada ku bilaabay wuxuu alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegaya ilaahay agtiisa waxa yaallaa inaanu dhammaanayn waxa ilaahay agtiisa kuu yaallaa weligiiba inuu baaqi kuu noqonayo waxa adduunyada lagu hayaana inay dhammaanayaan culimmadii hore waxay odhan jireen maa sumiya dahabu ila liannahu yadhab wala alfidatu ila liannaha tanfad dahabka dahab waxa loogu bixiyey waa wax tagaya weeye dahaba waa tagay weeye af carabiga waxa dahab loo yidhi waa wax tagaya weeye fidadana waxa fida loo yidhi waxa weeye waa wax firnaya oo kala daadanaya weeye oo kala didaya walidaalik ayaa nabigu inoo tilmaamaya waxyaabahan qofku ku ducaysanaya inay tahay waxyaaba aakhiro anfacaya wuxuu nabigu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam kelmadaha noocaasa in la kaydsado in la dhaqdo in lagu celceliyo in alle subxaanahu wa tacaala lagu baryo in macnaheeda la fahmo in waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala lagu baryo salaada dhexdeeda wuxuu nabigu ka bilaabay allahumma inii as'aluka athabaata fi lamr ilaahay waxaan ku weydiisanayaa diintaada inaad igu sugto waa duca aynu u baahannahay inaynu ku ducaysanno xilli kastoo aynu joogno iyadoo aynu ogsoonnahay xilligan aynu hadda nool nahay in imtixaanku badan yahay in fitnadu ay badan tahay in waxyaabaha diinta alle iyo cibaadadiisa iyo in loo soo jeesto waxyaabaha inaga leexinaya inaga goynaya jidgooyooyinku inay badan yihiin inagoo og inaynu alle subxaanahu wa tacaala weydiisanno inuu diintiisa inagu sugo inagoo og dad badan oo xaalkoodu toosnaa meeshay doonaanba ha gaadhaan inay waxa weeye hoobanayaan oo daadanayaan oo shalay salaada uu ku dadaalaya laakiin maanta aanu tukanayn shalay aanu balwad lahayn laakiin maanta balwad uu leeyahay shalay waxa weeye macaasi iyo dunuub badan oo uu ka foga bal haddii lagu soo hadal qaado uu dhibsanayay laga yaabo maanta inuu dhex dambaalanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligiisii markii la joogay isagoo afdalu khalqi illaah ah iyadoo alle subxaanahu wa tacaala ilaaliyey ayaa saxaabadii waxay leeyihiin waxaa ugu badanee nabigu ku ducaysanaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ilaaha quluubta badbadalow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada ku sug ilaaha quluubta gadgadiyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada ku sug ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam akaru min صaxaabi anas bnu malik ummi salama radia allahu canhum ajmaciin ay inoo tilmaamayaa nabigu inuu badsanayay ducada noocaasa
inuu alla subxaanahu wa tacaala diintiisa ku sugo. in diinta lagugu sugaana waa laba xaalo. xaaladan aad caafimaadka qabtay aad nooshahay ee xaalkaagu isku toosan yahay ee jaaniska aad haysata ilaahay diintiisa inuu kugu sugo. xaalada labaad waa xaalada halista weeye, waa xaalada qofka loo baqayo, waa xaalada naftu ay iska sii gurayso, waa xaalada laga yaabo inuu ku hadlo kelmad waxa weeye aakhiradiisa seejinaysa. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهي ددك مؤمنين تدداليا إيمانك لغاهلي وحكسوا كلمة حقا انت النوليهين آخرنا واللغسوا وكلمة سؤال سبحانه وتعالى كسوا قفك وحالدي سسدا يوبضا تهيب الله مريا. يبعث كل عبد على ما مات عليه. waxa uu ku dhintay baana lagu soo saaraya, wuxuuna ku dhimanaya sidii xaalkiisu u badnaa. xaalkiisu hadduu u badnaa 22 hadduu ku celcelinaya subax iyo galab iyo habeen, marka naftu ay iska sii gurayso waxa laga fiilanaya waa kelmadda inuu ku celceliyo weey. sida hore u dhacday dhici doonta waxaad soo tufaysaa oo aad diidaysaa wixii ka buuxa, waxaad adduunyada ku hadlaysaad ku soo celcelinaysay baad ku dhawaaqaysaa. qaar baa loo yimi sida culimada qaar ay ka hadleen markay khaatimada ay ka hadlayeen ayaa waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dheh. waa nin muslim oo laga filanaya laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo. wuxuu hi musxafka alla ii keeno. markii loo keenay uu ana kaafirun bihada, kan anigu waan ku gaaloobay. wuxuu doonayaa inuu u dhammeeyo oo aan lagu daalin, oo aan tahliisha lagu soo celcelin, oo aan loo laqimin. qaar baa markii laa ilaaha ila allah lagu celceliyey waxay ku celceliyeen waxa weeye 10 في 10 tobankiiba 10 weeye, tobankiiba waa 10. siday kelmadda ugu celcelinayeen ganacsadu ah waxa weeye wax iibiya kelmadda uu hadhiya habeen ku celcelinayay ee ilaahay iyo sharcigiisa uu ku ilaaway ee uu cibaado seegay baa waxa weeye ka soo yeedhay. kelmaddii tawxiidkana waa laga waayay. ilaahay thabaadka in la weydiisto ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku bilaabay. wuxuu nabigu ku xajiyey alcazimata cala arushd, hanuunka iyo wanaagga samayntiis in lagu go'aan qaata alla in la weydiisto. wax badan oo aynu doonayno wanaagsan waxa inaga wiiqaya caajisnimada. doonitaankeenna iyo go'aankeenno daciifa, go'aan jilicsan baa khayr badan ina seejinaya. waxaa ilaahay la weydiisanaya inuu alla subxaanahu wa tacaala hanuunka go'aan kugu siiyo. go'aankuna waa laba: inaad bilowdo, hore aad ugu dhaqaaqdo. waxaan doonayaa salaatuleyl inaan tukado, waxaan doonayaa qur-aanka inaan akhriyo, waxaan doonayaa jamaca inaan ku dadaalo, waxaan doonayaa salaada inaan ku dadaalo, waxaan doonayaa balwadda inaan ku dadaalo joojinteeda, waxaan doonayaa sigaarka inaan iska joojiyo, filimada xunxun iyo sawirada xunxun baan doonayaa inaan joojiyo. wax badan baa laga yaabaa naftaadu inay danaynayso, laakiin uu ka dhiman yahay go'aan adag, uu ka dhiman yahay. ilaahay weydiiso go'aan adag inuu ku siiyo, waayo go'aanku waa ta badbaadadu ay ku sugan tahay. waa ta alla uu ku tilmaamay ambiyadii uu xushay kuwa ugu qiimaha badan, 5 ugu fadliga badan. tilmaanta loo sheegay waxaa lagu sheegay inay yihiin ulul casmi min arusul, kuwa go'aanka u saaxiibka ah. lidkiisuna waa caajisnimada iyo waa hansiga iyo go'aanka jilicsan ilaahay in laga magan galo, siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga magan galayay. wuxuu nabigu ku xojiyey calayhi salaatu wasalaam waasaluka shukra nicmatik, ilaahay waxaan ku weydiisanayaa nicmooyinka aad igu nicmaysay inaan kaaga mahad celiyo. waayo ilaahay haddaad nicmada uga mahad celiso, caafimaadka uu ku siiyey, masaarifta alla subxaanahu wa tacaala uu ku siiye aad helayso ka badan haddii alla uu ku siiye waa falilaahi alxamd. hoyga aad hoyanayso ama kirayso ama waxa weeye hanti aad leedahay ha noqoto, haddii alla subxaanahu wa tacaala uu ku karsiiyey caafimaad uu kugu daray,
wadada toosan uu kugu toosiyey diintiisa ku fahansiiyey aad cibaadaysanayso xubnahaaga alla ku dhammaystiray alla subxaanahu wa tacaala inaad uga mahad celiso mahad calinta ilaahay loo mahad celinaya tii aad haysayna ilaahay waa kuugu daynaya oo waa ku ziyaadinaya kuwa kaa maqanna alla waa kuu keenaya wa xusna cibaadatik wuxuu nabigu sheegay ilaahay in la weydiista cibaado wanaagsan maaha cibaado dhan ilaahay wuxuu kaa doonayaa camalka kiisa ugu wanaagsan liyabluwakum ayyukum axsanu camala cibaado wanaagsan waxaa laga yaabaa labada qof inay wada cibaadaystaan midna cibaadadiisu korkii madaxiisa aanay dhaafin midna alla subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo kuwa uu ka aqbalayo baa cibaadadii marka 10 loo qaybiyo ama 100% laga siinaya midbaa 100% laga siinaya midbaa cibaadadii 200% laga siinaya midbaa 7% laga siinaya midbaa 7% laga siinaya midbaa loo laabaya waxa la soo koobay wallahu yudaa'ifu liman yasha ilaahayna ciduu doono u laaba waxa keenaya sida loo wanaajiyo qalbi soo jeeda amal waafaqsan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay in loo kaliyeelo waxyaabaha noocaas saameynaya amalkaagu inuu wanaagsanaado ducadaasina inay weyn tahay waxa ku tusaya nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ibn jabal ayaa nabigu waxa uu ku leeyahay wallahi inni la uhibbuk ilaahay baan ku dhaartay mucaad oo waan ku jecela oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ku celcelinayo wuxuu nabigu jawaab uga dhigay haday sidaa tahay talaan ku siinaya ee ha ka tagin markastoo aad tukato inaad ilaahay weydiisato allahumma a'inni ilaahay igu kaalme ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik inaan ku xuso oo ku xasuusto ku mahad celiyo cibaadadaada aan wanaajiyo in salaad kasta markaynu tukana lagu celceliyo wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku sii xajiyey waasaluka qalban saliima ilaahay waxaan ku weydiisanayaa qalbi caafimaad qaba qalbi ka caafimaad qaba dunuubta qalbiga daga qalbi ka caafimaad qaba shirkiga ilaahay cibaadadiisa wax lala wadaajinay qalbi ka caafimaad qaba istusnimo makhluuq la istusayo qalbi ka caafimaad qaba bidcooyin iyo hawooyin qalbi ka caafimaad qaba cuqdad iyo xaasidnimo iyo nacayb iyo haybsoociya waxyaabaha la midka ah ilaahay la weydiista qalbi caafimaad qaba qalbi fayow waana qalbiga maalinta qiyaamo ku anfacaya qalbi kalena aan waxba anfacay yawma laa yanfacu maalun walaa banuun maalinta qiyaamo waa maalin aanay ku anfacay hanti aad leedahay iyo wiilal aad leedahay ilaa man ata allaha biqalbin saliim waxa kaliya maalinta ku anfacaya waa qalbi saliima weeye ilaahay qalbi saliima in la weydiisto wuxuu nabigu ku sii daray walisaanan saadiqa carab run sheegaya oo beenta ka fog ilaahay in la weydiisto xilli aynu joogno waxa weeye beentu ay aad u faafsan tahay ama gacanta ha laga qoro ama afka ha laga yiraahdo oo miidiyaha ha la mariyo oo waxa weeye si xad dhaafa beentu ay u socoto nabiga la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam ninka muuminka ah ma zinaystahaabu mu'minku wax ma xadahaabu mu'minku been ma sheega ma yaburi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waxadii mujtamac uu ku faafo bulsho uu ku faafo waxa weeye bulshada kalsoonideeda dilaya shakhsiyadeeda dilaya waayo qofku markuu beenta sheegaya waa qof aan geesinimo lahayn waa qof daciifa waa qof aan ku dhicin xaqiiqada inuu wajaho waa qof noocaas weey xaalada way jiraan la baneeyay maslaxadu keensanayso islaantu haday kugu kacayso oo gurigu rogmanayo in been lagu dajiyo waa la inoo jiday laakiin waa xaaladu hadii ay adkaato weey laakiin dhaqankaagu subax iyo galabba hal xalaal inaadan aqoon tan noocaas looma jeedo colaad in lagu damiyo xaalada noocaasna waa la baneeyay laakiin beentu waa dabeecadaha ugu liita ee sharcigeenu uu ka digay wuxuuna kamid yahay dunuubta waaweyn buu kamid yahay
ilaahay illa weydiista carabka run laga sheego oo waxa weeye runta lagu dadaalo wuxuu nabigu ku soo gabagabeeyay saddex qodob ka koowaad uu yahay ilaahay waxaanu ku weydiisanaynaa khayr kasto aad og tahay oo laga yaabo aqoontayadu inaanay gaadhin baanu ku weydiisanaynaa oo waxa soo gudagalaya wixii la soo sheegay waxa la sheeginba dhammaantood waa soo gudagalaya waa duca jaamica oo koobaysa wax kasto dan ku ah adduunyo aakhiro wax kasto khayr ku leh alla subhanahu wa ta'ala inaad weydiisato waayo waxa dhacda waxyaabo badan oo dan ku ah khayrkaagu ku jiro inaadan ogeyn khayr inuu kuugu jiro laakiin alla subhanahu wa ta'ala waa ogyahay marka si guud alla u weydiiso ilaahay waxaan ku weydiisanaya khayr kasto aad og tahay ayaan alla ku weydiisanaya cagsigeedana ilaahay baa laga magan galaya wa a'uudu bika min sharri ma ta'lam waxyaabo badan oo waqtiga lagu luminayo waxyaabo badan oo dadku ay dhaxda baalanayaan waxyaabo badan oo dadku ay danaynayaan ayaa waxa laga yaabaa inaanay khayr ku lahayn ilaahay weydiiso inuu waxa weeye ka ilaaliyo ilaahay sharta uu og yahay adduunyo aakhiraba ee dhibka kugu ah alla subhanahu wa ta'ala inuu ka ilaaliyo waxa laga yaabaa qof inuu ilaahay faqiir ka dhigo oo alla subhanahu wa ta'ala uu og yahay dantiisu inay sida ku jirto oo laga yaabo hadii hanti la siiyo inuu qooqo oo xadka ka baxo ama diintaba uu ka baxo oo adoomada alla uu ku tunto ilaahay wuxuu ku edbinayaa faqri uu ku edbinayaa mid kale waxa laga yaabaa ilaahay faqri haduu ku salido isaguna diinta inuu ka baxo kaada al-faqru an yakuna kufra ilaahay wuxuu ku hayaa hodantinimo oo ilaahay xoolo siinaya waxa laga yaabaa hadii laga qaado inuu xadka ka baxo mid kale alla subhanahu wa ta'ala wuxuu ku hayaa caafimaad oo hadii xanuun ku yimaado waxa laga yaabaa xadka inuu ka baxo dadka qaar ku dhacday ay yiraahdeen markuu xanuunku ku batay ilaaha qalbigiisu adkaaday muxuu yahay soo kanoo sheegay inuu naxariisto ilaahi naxariista badnaamiyaanu ahay dabadeedna uu ku hadlay kelmada gaalnimo ah markuu alla ka qustay waxa laga yaabaa in waxa weeye caafimaadku uu waxa weeye danku yahay waxa suuragala dadka qaar inuu ilaahay xanuunada ugu salidayo oo xaqiisa alla subhanahu wa ta'ala u soo celinayo xaaladaha kala duwan ilaahay inuu keenayo mid baa laga yaabaa ubadkii laga qaado oo ubada hadii la siiyo inaanay khayr u ahay ubadkaasi ay halaagi lahaayeen mid baa laga yaabaa hadii ubadka laga ilaalin lahaa oo goblami lahaa inuu isaguna quusan lahayo fitnoobi lahaa ogow hadii waxa weeye xaaladaada lagu tuso sida ku wanaagsan sida alla subhanahu wa ta'ala ku doorayba dooran lahayd nin baa sheekha u yimi wuxuu ga ishtakooday baahiya faqri lagu saliday waa waani maalin labaad buu ku soo noqday maalin saddexaad buu ku soo noqday maalin walba wuxuu ka ishtakoonayaa faqriga baahi alla inuu ku saliday wuxuu yiri waxaad samaysaa magaalada gal qof walba la fadhiiso waxaad ka soo qortaa dhibta uu sheeganayo hal eegin aniga iikeen magaaladii buu ku soo wareegay kii ladnaa iyo kii faqiirka ahaa kii magaca lahaa iyo kii aan magaca lahayn kii caafimaadka qabay iyo kii xanuunsanayay kii ubadka lahaa iyo kii goblanka ahaa mid walba waa u tagay mid waliba dhib buu sheegtay duruuf iyo xaalado waayo nicmadiisa lama weydiinayna dhibka uu ku sugan yahay baa la weydiinayay markuu yimi buu xaaladii u soo bandhigay wuxuu ogaaday markuu qiimeeyay dhibaatooyinka qof waliba ka cabanaya mid isaga ku sugan ma aha isagu faqri kaliya ka cabanaya waxa uu dhintayda la qaatay kiiladna dhibaatooyin uu isla u dul qaadan maysid haday kugu timaado ayuu waxa weeye u sheegtay oo isagu nicmo kaga sugan yahay tabaana sheekhi sidaas uu ku qanciyo xaaladiisana uu ku raali noqday nabigu wuxuu ku soo gabagabay alayhi salatu wasalaam ilaahay oo dambi dhaaf waxaan ka weydiisanaya waxa aad ogtahay waayo waxa laga yaabaa dunuubta qaar inaadan ogeyn inay dambi tahay
waxa suuragala dunuubta qaar inaad ogtahay inay dembi tahay laakiin aad ilowday waayo xilligeedii toobad laguma waafajin muddana waa ka soo wareegtay inaad dembigaas samaysay baabad ilowday kamanaadan toobad keenin maalinta qiyaame marka la soo istaago sidoo alla subxaanahu wa tacaala inoo sheegayo wawudica alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna ya waylatana ma lihada alkitaab laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha waxaa dad badan ku dhici doonta maalintaas wabadaa lahum min allahi ma lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay waxaa uga muuqday waxaanay filanayn dembiyo badan oo la ilaaway ama la fududaystay oo la sahashaday oo ilaahay kitaabka uu ku qoray oo aan la dhaafayn oo aan la ilaawayn fii kitaabi laa yadilu rabbii walaa yansa ayuu ugu tagayaa dabadeedna qofkii waa yaabaya wuxuu odhanayaa kitaabkani waa maxay mid yar iyo mid weyn labada midna aan dhaafayn wawajaduu maa camiluu xaadira wixii uu sameeyey oo kumbulaydabaa hal mar hortiisa loo soo dhigay wuxuu ilaawaya waxaanuu ilaawinba ilaahay weydiiso mar walba weydiiso inuu ilaahay kuu dhaafo wuxuu isagu og yahay ama adigu aad ogaatid ama yaadan ogaan walaalayaal ducadaasi waa duca aad u qiimo badan halla xifdiyo waa erayo kooban alle subxaanahu wa tacaala ha lagu baryo khayr adduuniye iyo mid aakhira labaduba waa ku dhan tahay baahi kastoo diimeed oo aad qabto nabigu calayhi salaatu wasalaam axwaal kala duwan buu ku xusay oo waa kuugu sugan tahay salaada gudaheeda in lagu ducaysana axaadiistu waa inoo tilmaamaysaa goobta lagu ducaysanayaana waa laba mid adaa u door leh sujuudda inaad ku ducaysato kollay salaada faralka la haleeli maayo oo waxa weeye intaa iyadu waa ka gaaban tahay qofka haddaanu keligii tukanayn laakiin sunnayaasha in sujuudda lagu ducaysto in waxa weeye markaa taxiyaadka iyo salliga iyo ducooyinka la wado inta aan la salaamu naqsan salaada gudaheedana iyadana waa lagu ducaysanayaa waayo salaada dhammaadkeeda marka laga baxana waa la yidhaahdaa inta aan laga bixin salaada dhammaadkeedana inta aan salaamu naqsanna waa lagu ducaystaa ducada noocaasa ha lagu ducaysto insha allahu tacaala macnaheedana ha la fahmo qodob waliba wuxuu u baahan yahay saacad buu u baahan yahay laakiin waxaan uga jeedaa maanta ducada un inaan dul maro ducooyinka nabiga qiimaha badanna mid ka mid ah inuu isxasuusino ayaa ku talagalku alaa wasaluu waslimuu calaa nabiyikum alamiin alladii amarakum allahu bisalaati wasalaami calayhi biqowlihi fi kitaabihi lmubiin in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi waslimuu tasliima allahuma salli cala